Assalaamu calaykum. Roobabku waa kuwo ka yimaada daruuro isku tegay kuna yimaada awoodda Alle si ay ugu noolaadaan dadka iyo xayawaanadaba. Balse maanta waxaan idiin wadaa roobabka ugu la yaabka badan caalamka. Ku soo dhawaada daawadayaal fiidiyowgeena maanta. Fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. Roobabkii casaanka ahaa. Waxaan bilaabi doonaa sheekada roobabkani casaanka ah oo ka da'ay magaalada Kerala ee Hindiya, iyadoo isaga jiraan dadku maalintooda quruxda badan si caadi ah bishii Julaay ee sanadkii 1957. Samada ayaa roobaysatay taasoo ka dhigtay magaaladii oo dhan mid wada casaan ah. 63 sano kadib, waxaan ka sheekeynaynaa arrinkani, balse wuxuu u muuqan lahaa sidii filim Hollywood ah oo xambaarsan qiso argagax leh. Balse arrinkani waa mid dhacay oo dhab ah. Waxaa ka yimaaday samada roob casaan ah. Dhab ahaantii, hadduu dhaco arrinkani, waxaa lagu tilmaami lahaa inuu yahay dhammaadka caalamka. Laakiin waqtigani dadku waxay dareemeen cabsi aad u daran, wayna kala carareen sidii waxa ka dhaca filimada Hollywood-ka. Waxay aaminsan yihiin khubarada isbeddelka midabka roobabka inuu yahay natiijo ka dhalatay qaraxii Naysakin markuu soo galay cufis jiidadka dhulka. Midaas ayaa keentay inay noqdaan roobabkani midabkani casaanka ah. Roobabkii caanaha. Hadda waxaan ka sheekeynaynaa roobabkani caanaha ah ee ka da'ay Oregon ee Washington. Waa nooc kale oo ka mid ah noocyada roobabka oo lagu magacaabo roobabkii caanaha, maxaa yeelay badanaa ma ahan roobabkani kuwo caddaan aad u ah. Wuxuu ka da'ay gobolka Oregon meel u dhow Washington, waana meel lagu yaqaano ciyaarta kubadda cagta. Waxay bilaabeen khubarada jaamacadda Washington in ay baaraan arrinkani, waxayna ka soo saareen 2 sababood. Wuxuu u laabanayaa sababka koowaad mandiqada Oregon inay tahay mid abaar ah inta lagu guda jiro waqtiga jiilaalka ah, waxaana ka dhaco dabaylo jira halkii saac 60 mayl, taasoo ku dhacdo harooyinka xilliga uu da'ayo roobabka, waana sababta ka dhigtay in noocaasi ay noqdaan roobabkani. Sababta labaad, roobka ayaa da'ay natiijo ka dhalatay foolkaano ka dhacday dalka Ruushka ama Jabaan. Ma ahan midani mid dhici karta. Roobab foolkaano ah oo ka yimaaday 2 dowladood oo kala duwan kuna da'ay Mareykanka. Waa arrin cajiib ah oo la yaab leh. Roobabka bunniga ah. Iyadoo lagu guda jiro maalin iska caadi ah Ruushka gudihiisa, dadka ayaa dareemay walwal aad u daran marka ay da'een roobabkani bunniga ah. Waxay aaminsan yihiin dadka deegaanka dhibaatadani inay ka dambeyso wasakheynta hawada ee warshadaha, laakiin arrinku sidaa ma ahan oo khubarada waxay sheegeen inuu yahay waxyaabo laga helo Afrika, iyagoo ku tilmaamay dhibaatada wasakheynta Afrika inay tahay arrinkani. Roobabkaasi oo ku soo da'ay Ruushka waa arrin su'aalo badan dhalin kara. Roobabkii qadaadiicda ama shilimaadka. Waxaa soo da'ay roobab shilimaad fiddo ah wata. Waa arrin la yaab leh, bal ila dhegeyso sheekadani. Bal isweydii, maxaa dhici lahaa hadday samadu roobab lacag ah ka da'i lahaayeen? Tani ma ahan khuraafaad, maxaa yeelay waxay ka dhacday magaalada Khoreba ee Ruushka sanadii 1940, iyadoo samada ay ka soo daateen wax ka badan 1000 shilimaad fiddo ah. 1000 shilimaadka fiddada ah ama qadaadiic ah waxaa qaaday dabeyl aad u xooggan, kadibna waxay ku soo daadisay magaaladani yar. Waxay ahayd shilimaad fiddo ah oo la isticmaali jiray qarnigii 14aad. Hadda way adag tahay in la xisaabo qiimaha dhabta ah ay ku fadhiyaan shilimaadkani. Waxaa la sheegaa inay ahayd wax ka badan $100 oo Amerikaan ah. Waxaa la dhahaa inay roobaysatay samada malaayiin dollar maalinkaasi. Roobabkii dhaymanka. Ka waran hadday samadu ka imaan lahaayeen roobab dhayman ah? Taasi waa mid ay danayn lahaayeen malaayiin dad ah. Qof faqiir ahna lama arkeen. Arrinkani wuxuu u muuqdaa mid khiyaali ah,
laakiin wuxuu ka da'aa bannaanka meeraheena dhulka ah, wuxuuna ka da'aa meeraha Jupiter oo ah meeraha ugu weyn meerayaasha qorraxda. Waxay ogaadeen saynisyahanadu inuu ka da'ay meerahan roobab diamond ah, micnaha dhagaxyo laga samayn karo fargashiyo diamond ah iyo wixii la mid ah. Jajabka diamond-ka ah ayaa ku dulduula jawiga meerayaasha Saturn iyo Jupiter oo ah qaab hydrogen iyo helium. Marka laga hadlayo sababta ka dambeysa tan ayaa ah in joogga sare uu joogaan heerkulka ba'an, cadaadiska iyo hal-abuurka jawiga marka lagu daro duufaanada korontada ah ee ka dhaca mandiqadaas. Meerayaashaasi gaaska ah ee kulul markuu ku dul dhaco diamond-ka, kulaylka aadka u daran wuu dhalaalaa kadibna qiiq ayuu noqdaa, kor ayuuna aadaa mar kale. Sidaasi ayayna ku socotaa, taasoo ka dhigta roobabkani kuwo wata hanti aad u badan. Roobabkii caleemaha geedka. Hadda waxaan aadaynaa xagga iyo Faransa. Marka aan kasoo laabano ama aan kasoo tagno Jupiter iyo Saturn, ma suurtagal baa inay caleemaha geedaha ay kasoo daataan cirka meesha ay kasoo dhici lahaayeen geedaha? Dhab ahaantii waxay ka dhacday arrintani Faransa sanadii 1869 iyadoo jawiga caadi u yahay. Cimiladu waxay bilaabatay inay si la yaab leh isu beddesho, waxayna bilaabatay inay caleemaha geedaha kasoo daataan samada sidii geed weyn oo samada lagu beeray. Qof waliba aad buu ula yaabay arrintan. Waxaa la sheegaa inay tahay arrinkani dabayl weyn oo ka kacday 6 maalmood ka hor da'idda roobabkani, waxayna qaadatay caleemihii waaweynaa ee geedaha waxayna ka tagtay iyadoo ah goobtaasi sidii dhul saxaro ah. 6 maalmood gudahood ayay ku qaaday wayna soo celisay iyagoo u da'aya sidii biyaha roobka. Roobabkan ayaa sigta ma ahayn sidii roobabkii ka da'ay Beryl, waxay ahayd roob, waana roob dhagaxyo leh, waxayna ka mid tahay roobka ugu quruxda badan ee aad ebid aragto noloshaada. Roobabkani ma ahan kuwo waxyeello geysta, wuxuuna ku soo dhacaa fiidkii meelaha qaarkood. Qaraxyada ka dhaca hawada sare waxay horseedaa inay dhacaan 1000 neyazik saacadiiba, iyadoo ay ugu wacan tahay qashinka cosmic-ka loo yaqaan neyazik, kaasoo kusoo galo jawiga dhulka xawaare aad u sareeya. Meteoroidyada qaarkood way ka yar yihiin badh ciid ah, waana jeclaanaysaa daawashadooda xilliga qorax dhaca ama uu tago guduudka qoraxda. Roobabkii masaska waxay ka dhacday meelo dhowr ah oo ka mid ah caalamka duufaanada dartood, iyagoo qaataan masaska iyo kalluunka, haraha, qubaha iyo xayawaanada biyo ku noolka ah, kuwaasoo kasoo daata samada marba marka ka dambeyso, iyadoo arrinka ay ka dambeyso duufaan dhammaystiran. Maxaa samayni lahayd haddii aad arki lahayd mas saaran madaxaaga iyadoo ay ku kor daadanayaan kaa'inaadka badda hortaada? Waa arrin aad argagax u leh. Anigoo arrinkani waxay ila tahay mid suurtagal ah, maxaa yeelay dabaylaha waaweyn waxay qaadaan waxyaabo la yaab leh, sidoo kale waxay burburiyaan guri oo idil gebi ahaantiiba. Laakiin arrinka cajiibka waxa weeye in xayawaanada badda ay kasoo daataan samada marka ay soo marayaan duufaanadani. Badaha, harooyinka, webiyada iyo meelaha biyo fadhiga ah ayay soo qaataan xayawaanadani, kadibna waxay kasoo daataan samada. Dhab ahaantii arrintaa waa mid dhacday oo dhab ah. Dhammaan waa inaga intaa waxaan ka sheekeynay oo idil. Haddaba daawade, teebaa ku cajab gelisay? Fadlan noogu dhaaf commentiska. Waxaan idin rajaynayaa caafimaad taam ah iyo isku soo noqod wanaagsan. Allaha idin waraabiyo roobab kheyr qaba. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.